sanadku waa 1930kii dalkuna waa Uruguay waxaa ka bilaaban doonta dhacdo 4 sano kasta sababi doonta in la isku imaado markii ugu horeysay waxaa isku imaaday ciyaartoy ka socda 13 dal iyagoo rajeynayo inay qaban karaan shay aan horey u jirin koobka adduunka laakiin sidee ayay ciyaar fudud oo ku bilaabatay garoon yar ugu bedelantay dhacdo ciyaareedka ugu weyn dunida sidee ayuu tartankan markii ugu horeysay lagu qabtay dal yar uu maanta u noqday astaan ay dunida oo dhan la socoto tani maahan oo keliya sheeko kubadda cagta waa sheeko ku saabsan riyo tartan haliyeeyo iyo sida ciyaar keliya ay u noqotay luuqad ay dunidu wada fahanto tani waa taariikhda koobka adduunka ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta si loo fahmo sida uu koobka adduunka uu ku bilowday waa inaan dib ugu laabanaa qarnigii 19aad xilligaasi kubadda cagtu waxay si gaar ah ugu soo baxday Ingiriiska halkaas oo laga sameeyay xeerar rasmi ah oo ciyaarta nidaamiyay markii warshadaha tareenada iyo ganacsiyadu dunidu isku soo dhawaanayeen ciyaartuna waxay ka gudubtay xuduudaha Ingiriiska waxay gaartay qaarado kale dalalku waxay bilaabeen inay sameystaan kooxo iyo ururo kubadda cagta ah laakiin waxaa jiray hal su'aal oo weyn maxaa loo sameyn waayay tartan ay quruumaha dunidu hal koob ugu tartamaan fikradaasi waxay u baahneed nidaam caalami ah sanadkii 1904 magaalada Paris waxaa lagu aasaasay ururkii caalamiga ahaa ee koobka adduunka FIFA ujeedadu waxay ahayd in kubadda cagta laga dhigo ciyaar caalami ah oo dalalku ay ku kulmaan laakiin riyadaasi ma ahayn mid fudud safarada caalamiga ah waxay ahaayeen kuwo adag qarash badan leh dalalkuna waxay la kulmayeen caqabado badan si kastaba ha ahaatee fikradii koobka adduunka way sii nooleed sanadadii xigay fikradii koobka adduunka way sii xoogaysatay FIFA waxay rabtay inay sameyso tartan ka duwan tartamada kale tartan ay ku kulmaan xululka dawladaha ugu dambeyntii sanadkii 1930kii riyadii waxay noqotay mid xaqiiqo ah dalka Uruguay waxaa loo doortay martigeliyaha koobka adduunka ee ugu horeeyay sababta ayaa ahayd in Uruguay ay ahayd dal awood ku lahaa kubadda cagta xilligaasi isla markaana ay ku guuleysatay tartamadii Olombikada ee sanadadii ka horeeyay laakiin xaaladda markaasi ma ahayn sida maanta ma jirin telefishin dunida oo dhan gaarsiiya ciyaaraha mana jirin tiknoolajiyad casri ah safaradu waxay qaadanayeen waqti dhaadheer gaar ahaan kooxihii Yurub ee badda ku safarayay haddana riyadu way bilaabatay koobkii ugu horeeyay waxaa ka qayb galay 13 dal finalka waxaa isku arkay Uruguay iyo Argentina ugu dambeyntii Uruguay ayaa noqotay dalkii ugu horeeyay ee taariikhda ku guuleysta koobka adduunka koobku wuxuu markaasi ahaa mid yar marka la barbar dhigo maanta laakiin fikradii ayaa bilaabantay kadib tartankii ugu horeeyay koobka adduunka wuxuu bilaabay inuu koro sanadkii 1934 waxaa lagu qabtay Talyaaniga halka 1938 lagu qabtay Faransiiska laakiin dunidu waxay gashay waqti adag dagaalkii labaad ee adduunka ayaa bedelay wax walba dalal badan ayaa burburay xaaladda duniduna waxay noqotay mid aan saamaxaynin tartanka caalamiga ah sidaas daraadeed koobka adduunka lama qabanin sanadkii 1942 iyo 1946 markii dagaal ku dhamaaday kubadda cagtu waxay noqotay mid ka mid ah waxyaabihii dadka dib ugu soo celiyay farxadda iyo isku imaatinka sanadkii 1950kii tartanku wuxuu ku soo laabtay Brazil waxaa la filayay in Brazil ay ku guuleysan doonto tartankaasi laakiin Uruguay ayaa mar kale ku guuleysatay waxay muujisay hal xaqiiqo koobka adduunka marnaba lama saadaalin karo koobka adduunku ma noqon lahayn waxa uu maanta yahay haddii aysan jiri lahayn ciyaartoy bedeshay taariikhda mid ka mid ah magacyadii ugu caansanaa ee taariikhda koobka adduunka wuxuu ahaa Pele markii uu Brazil ka caawiyay guushii 1958 isagoo weli da'yar ahaa wuxuu noqday astaan caalami ah Brazil waxay caan ku noqotay farsamo hal abuur iyo qaab ciyaareed qurux badan sanadadii dambeeyay waxaa yimid Diego Maradona wuxuu noqday xidiga aan la iloobi karin kadib markii uu Argentina ku hogaamiyay guushii 1986 Zainuddin Zidane wuxuu ka mid noqday astaamihii kubadda cagta markii uu Faransiis ku hogaamiyay guushii 1998 ninkani wuxuu ka soo jeedaa asal ahaan dalka Algeria jiilal cusub ayaa sii waday sheekada ciyaartoyduna ma aysan noqonin oo kaliya kuwa kubadda ciyaara waxay noqdeen xusuus ay malaayiin qof ku xireen waqti muhiim ah noloshooda
inkasta uu yahay tartan ciyaareed, koobka adduunka mararka qaar wuxuu noqday wax ka weyn kubad. Marka calan la taago, hees qaran la qaado, koox dalkooda matalaysa garoon ka gasho, dareenka dadku wuxuu noqdaa mid ka duwan ciyaar caadi ah. Guulaha qaar waxay noqdeen astaan midnimo oo qaran, kulamada qaarna waxay yeesheen macno ka baxsan 90 daqiiqo ee garoonka. Koobka adduunku wuxuu muujiyey in ciyaartu mararka qaar ay ka turjumayso rajada, dareen iyo xaaladda bulshada. Maanta, koobka adduunku waa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu weyn dunida. Waa tartan, laakiin sidoo kale waa dhaqaale, ganacsi, dalxiis iyo warbaahin. Garoomadii hore ee yaryaraa waxay isku beddeleen dhismayaal casri ah oo ay taageerayaal badan buuxiyeen. Telefishinka iyo internetku ayaa ciyaarta gaarsiiyey meel kasta oo dunida ah. Tiknoolajiyadu waxay sidoo kale beddeshay ciyaarta. Nidaamyada sida VAR ayaa noqday qayb ka mid ah kubadda cagta casriga ah. Koobka adduunku maanta waa isku darka ciyaar, tiknoolajiyad, muuqaallo caalami ah. Waxaa jira tartamo badan oo ciyaareed, laakiin koobka adduunku wuxuu leeyahay wax gaar ah, sababtuna waa hal shay: wuxuu mideeyey quruumo. Tartamada kale inta badan waxay ku saabsan yihiin kooxo iyo horyaallo, laakiin koobka adduunku wuxuu ku saabsan yahay dal dhan, carruur, waayeel, dad ku nool magaalooyin waaweyn, kuwa fogfog. Dhammaantooda waxay wadaagaan hal daqiiqo, gool, guul, murugo ama xasuus aan la ilaawi karin. Taasi waa sababta koobka adduunku uu u noqday wax ka badan tartan. Waa sheeko ay dunidu wada qorto 4 sanaba mar. Marka dib loo eego taariikhda koobka adduunka, waxaa muuqata in uusan lahayn oo keliya koob la qaado. Waa safar ka bilaabmay fikrad yar, fikrad ah in dalalku ay hal garoon ku kulmaan. Waxay soo martay caqabado, dagaallo iyo isbeddello badan, laakiin haddana waxay noqotay mid ka mid ah astaamaha ugu weyn ee dunida. Sababtoo ah marka kubadda garoonka dhexdiisa rogroganto, maahan oo keliya ciyaar bilaabatay, waa taariikh socota. Intaas aynu kusoo gunaanadeena muuqaalkeena maanta. Ha iloobin daawade inaad muuqaalka like saartid, lana wadaagtid asxaabtaada, sidoo kalena aad nagu soo birtid haddaad nagu cusub tahay. Waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.